habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Maxkamadda racfaanka ee dalka Maraykanka ayaa diiday amarkii madaxweyne Donald Trump uu dalkan kaga mamnuucay in ay u soo safraan muwaadiniinta 7 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto muddo 90 maalmood. Trump oo dastuurka wadankan uu ogol yahay in uu soo saaro wareegtooyin ayaa u arkay in wareegtada amarka madaxweyne ee uu ku mamnuucayo qaxootiga ay sharci ahayd, waxaana uu muujiyay in uu kiiskan u gudbi doono maxkamadda sare ee dalka Maraykanka. Haddaba kala madax banaanida hay'adaha dawladda ee wadanka iyo go'aanada maxkamadda ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi oo ah sharci yaqaan ku sugan gobolka Minnesota. maxkamadda shalay toole maxkamaddan waa maxkamadii sare oo ku taalo magaalada la yiraahdo San Francisco oo California kamid ah. maxkamadaas waxay ka jawaabeysay codsi kaga yimid xukuumadda oo uu hogaamiyo madaxweyne Donald Trump oo ay kaga cabanayeen maxkamad hoose go'aan ay soo saartay oo ay ku istaajisay ama ay ku blockaraysay wareegtadii uu soo saaray 27kii bisha January. maxkamadda kadib markii maxkamadan sare kadib markii ay dhageysatay xukuumadda iyo dhinaca kale ma aragtay ku loolamayay ama ku doodayay in uu wareegtadaas ay tahay sharciga waafaqsanay inay waafaqsan tahay arrinta ay maxkamadda waxay ku raacday maxkamadda sare waxay ku raacday maxkamadii hoose go'aankii ay soo saartay, balse waxaan u baahanay in halka iyada wax yar mataqaana fahan yar aan ku faahfaahino oo ah waxa lagu doodayay ma dooda hortaalay maxkamadda sare ma aysan ahayn wareegtada uu soo saaray madaxweynaha inay dastuurka waafaqsan tahay in kale ama inay shuruucda kale ee wadanka waafaqsan tahay in kale ma ahayn. waxay ahayd arrin technicality oo ah maadaama maxkamadii hoose si ku meel gaara inta maxkamadda laga dhageysanayo ay blockaraysay TRO waxa la yiraahdo temporary restraining order waxa la yiraahdo laga dalbaday ay appeal ka qaateen. appealkaas oo ku salaysnaa kaliya narrow mataqaana arrin yar oo ma aragtay aad u yar oo ah in la hakiyo maxkamadda iyo blogga ay samaysay laga qaado si wareegtidii ay u dhaqan gasho. arrintii marka maxkamadda waxay ku raacday maxkamadii hoose. waa tahay Cabdinaasir, marka dadku waxay isweydiin karaan haddii sida ay u kala shaqeeyaan maxkamadaha wadankan Maraykanka, Congress-ka iyo madaxtooyada. madaxweynuhu maadaama uu sharciyan dastuuriyan uu dastuurku u siinayo inuu dekreeto ama uu soo saari karayo, haddana maxkamaduhu in ay ka hor istaagi karaan waxyaabaha qaar sida tan hadda dhacdo oo kale. marka meeshaasi dadweynaha ku dhageysanaya haddaad sharaxaad ka siiso sida ay u shaqeeyaan maxkamadaha Maraykanka, Congress-ka iyo madaxtooyada. su-aal runtii aad u muhiima weeye in badanna ma aragtay la isweydiiyo wadanka Maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba oo ah sida checks and balanceska waxa la yiraahdo ama dawladdu inay ka kooban tahay 3 waaxood oo ah waaxda sharciyada dejisa oo ah ma aragtay Congress-ka, waaxda fulinta la yiraahdo oo xukuumadda mararka qaarkood af Soomaaliga lagu yiraahdo oo ah madaxweynaha iyo cabinet-kiisa iyo waaxaha fulinta iyo waxa jirto maxkamadihii oo ah garsoorka. 3daas ayaa waxay yihiin co-equal branch of the government. waa 3 waaxood oo siman dastuur ahaan marka la eego. midna waa hay-adii ama waa waaxdii soo saaraysay sharciyada, midna waa midii fulinaysay, midna waa midii ka turjumaysay ama sharci ahaan eegaysa. marka maxkamadaha wadankan waxay maxkamado badan kaga duwan yihiin not only inay sharciga turjumaan kaliya, iyagu laftoodu waxay leeyihiin role ama aragtay checkgoodu aad buu ma aragtay u siinaya awood badan inay haddii ay labada dhinac mid kamida shuruucdeedu ay dastuurka ay khilaafaan inay joojin karaan ay xakameyn karaan. marka tan shalay go'aanka soo baxay waxay ku tusinaysaa sida check and balanceska uu shaqeynayo, taasoo ka turjumaysa inaynan cid kaliya ama madaxweynaha uusan noqonin awoodiisu mid ballaaran oo aan la xakameyn karin oo marka dambe isu bedesho mataqaana wax dictatorialka ama tyranny isu bedelo si aynan u noqonin. marka xilligan xaadirka dabcan waxaa jiro madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa ururka la yiraahdo jamhuuriga. Congress-ku oversight-kiisa runtii sidii la jeclaan lahaa ma aha, sababtoo ah waxaa labada aqal Congress-ka hadda mas-uul ka ah isla jamhuurigii. marka waxaad moodaa roolkii maxkamadaha inuu si aada oo runtii mataqaana uu soo baxay. arrintaasna ay tahay arrin aada loogu farxo. maxkamaduhuna waxa weeye roolkooda inay iyagu laftoodu ay sharciga iyagoo eegaya aan cidna ma aragtay aan u eegaynin ideologigiisa ama siyaasad ahaan iyagoon u fiirinayn
inay sharciga iyo dastuurka waafaqnaantiisa inay eegaan wayaan. waa tahay waxaa sidoo kale la isweydiin karaa haddii mar maxkamaddan San Francisco ay go-aankaasi riday xalay micnaheedu maxay tahay markaa? go-aankii shalay wuxuu ka dhigan yahay sida aan hadayba tilmaamay maxkamadii hoose oo joojisay bloogaraysay dhaqangalkii wareegtadii madaxweynaha ayay ku taageertay, taasoo micnaheedu yahay wax xayiraadii wareegtada ay soo rogtay gabi ahaanba weli waxay ku jirtaa hold. weli inay sharci tahay inaan sharci ahayn waa dood laaban oo dib laga eegi doono, balse xilligan xaadirka ah waxay ku jirtaa weli holdigii bay ku jirtaa. taa marka waxay sahlaysaa dadkii qaxootiga ahaa ee uu ka mamnuucay waddanka inay soo galaan, dadkii fiisooyinada kala duwan watay ee laga mamnuucay ama laga hor istaagay waddanka inay soo galaan, dadkii ay brosesyada ku jiray safaaradaha kala duwan ama booqasho waddankan u imanayay ama waxbarasho u imanayay ama waxay siyaabo kala duwan u imanayay laftoodu inay furan yihiin oo aysan hor istaagi karin dawladda. sababtoo markaa go-aanka maxkamadda ay soo saartay madaxweynuhu iyo qeybtiisa fulintu ay ku qasban yihiin inay sidaa u qaataan. ilaa iyo haddana dee sida noo muuqata waxa weye way qaateen hay-adaha socdaalka iyo arrimaha dibadduba sida caadiga ay u shaqayn jireen bay ilaa hadda u shaqaynayaan, gaar ahaan 7 waddan ee xayiraadda ay saameynayso.